madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ballan qaaday xanaaninta carruurta agoonta ee ku jira xarunta ku tala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xarunta ayaa hadda ku xareysan yihiin carruurtan ayaa waxaa gacanta ku haya maamulka ciidanka asluubta ee dowladda Soomaaliya. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur ayuu madaxweynuhu u soo wakiishay in uu ku wareejiyo lacag loogu talagalay inay ku ciidaan carruurta agoonta ahayd ee xarunta agoonta ee gabdhaha, waxaana cunugiiba la siinayaa $110. dalka Soomaaliya waxaa ku nool carruur badan oo ku agoontinowday dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay, waxaana intooda badan ay yihiin kuwo ay ku yar tahay helidda daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho intaba. dhinaca kale, safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa talaadadii $22,000 u ballan qaaday college lagu xanaaneynayo agoonta oo uu ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. deeqdan ayaa ujeedkeedu yahay in agoonta dhigata iskuulada looga iibiyo cunno iyo agabka waxbarashada iyada oo ay fooda inagu soo hayso munaasabadda ciidda ee bisha barakeysan ee Ramadaanka kadib. safiirka Shiinaha ee Soomaaliya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee dalka Shiinaha ee Xinhua in caawimaantaasi loola jeedo in la taakuleeyo agoonta iyo carruurta kale ee qoysaska danyarta ka soo jeeda ee ku jira xarunta Bondere Orphanage, halkaas oo ay ku xareysan yihiin in ka badan 300 oo gabdhood oo agoon ah.